magaalooyinka sida weyn looga xusay munaasabadda qaran ee 18 May waxaa ka mid ah degmada Facaweyn ee Waraabeeye oo ka tirsan gobolka Togdheer. Mas'uuliyiinta degmada, madax dhaqameed, aqoon-yahan, culimo awdiin, mudan iyo haldoor kale ayaa la dabaaldegay bulshada degmada Waraabeeye oo ku labisnaa astaamaha qaran ee Somaliland. munaasabadda 35 guurada dib ula soo noqoshada madax bannaanida Somaliland. socod lug ah oo ay wadooyinka waaweyn ee magaalada Waraabeeye ay ku mareen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada ayaa waxaa la hadlay bulshada deegaanka. gudoomiyaha degmada Waraabeeye Xamse Shaqale, Chief Aqil Ali Ibrahim, mas'uuliyiin mudan iyo odayaal kale waxaanay ugu hambalyeeyeen bulshada munaasabadda 35 guurada daraarta qaran ee Somaliland. hambalyo sanad guuradii 35aad 18 May oo maalintii gooniisutaaga Jamhuuriyadda Somaliland 35 sano ka hor ay la soo noqonay oo gobolka Togdheer laga dhawaaqay. degmada Waraabeeye waa u hambalyeeynaa shacbigeeda, uqaasheeda, haweenkeeda, dhalinyaradeeda, waxgaradkeeda iyo degmooyinka kale ee degmada Waraabeeye ku xiran sida degmada Bilcilweyso, Sanyare, Xuseen Xamar, Balle Cali, Balle Cumar Jibriil, Balle dhammaan dadkii deegaanada ka yimid ilaa Labiguun. aad iyo aad baan iyagana u hambalyeynaa oo soo dhaweynaynaa waana salaamaynaa. maanta waxaan joognaa maalin qiimo badan baan joognaa, maalin aynu haysano ictiraaf baynu joognaa oo dowladaha caalamka ka mid nahay. innagoo aan ictiraaf haysan baynu dee guntiga dhiisha isaga dhignay oo aynu qarannimadeenna ka shaqaynaynay. maantana way ka sii weyn tahay, waa sanad guuradii 35aad. maanta oo kale 1991 inaga qiimo weyn bay horta runtii inoogu fadhidaa, waayo raggii markaa maalintaa taliyey ee yidhi waaryaynaan cid waxba ku darsanina aynu dowladnimadeenni 60kii la soo noqonno, talo wanaagsan bay maalintaa inoo taliyeen. waxaynu maanta ku jiri lahayn xasanow iga soo bax iyo farmaajo iga soo bax baynu ku jiri lahayn oo ilaahay naga badbaadiyo. waxaynu u baahannahay inaynu hore u sii wadno dowladnimadeenni. maalinba maalinta ka dambaysa way soo kordhaysaa. dowladdii iyo madaxweynihii maadaama waxbuu ku darayay ilaa maanta ninba inbuu keenayay. maanta waxay maraysaa inay dee caalamkii hore ugu socoto oo idaacaddii la furaaba ay Somaliland ka sheekaynayso maanta in wadamo kale jidka ku soo jiraan oo ictiraafkii Somaliland ay dhawaan ku dhawaaqayaan. waxa mudan ragga soo qabangaabiyey xafladan qiimahan leh ee ku siman ilaa SNM. Somaliland ha noolaato, cadowga ha jabo, nabadgelyadu waa muhiim, dadkan wax la qabsano waa muhiim, inaynu dalka wax la qabsano waa muhiim, inaynu ma garanaysaa bulshada ka qayb noqono oo wixii kasta loo baahan yahay aynu wax ka qabsano waa muhiim. dadka reer Waraabeeye horta waxaan ku baraarujinayaa aad iyo aad inaad degmadiina wixii ay idinku midho kala soo baxdaan ee muuqda ayuunbaa waxtar idiin noqonaya. wixii aad goosataan ee aad dowladda ka goosataan ayuunbaa idinka go'an. lafahoodii faqash waa ogtiin oo degmada tuuladan Sanyare halka laanta caana macayska la yiraahdo nin walba uu garanayo lafihii baa yaala faqashta haddadaasay taalaa waa wada garanaysaan. wixii halkaa dhigay waxay ahaayeen raggii maanta munaasabadan aynu xusayno, raggii inoo noqday hurmuudka ee inaga kiciyey gabaaraydiina cunaysay. inta mudaniyo mayna soo raac maydu waata waa 18 May maanta xusayno. inaga maanta waxa ka mid ah jiritaankeenna iyo waxyaabaha aynu markaa waxa weeye dugsanayno iyo waxyaabaha aynu markaa waxa weeye leenahay sida maalintan oo kale oo halku dhiga sanadkan uu yahay aqoonsi iyo adkaysi. markii aynu adkaysanay ee duruufo badan aynu adkaysanay ee ka go'anay wixii Soomaaliyeed la isku oran jiray oo dhibaato far badan inagu soo gaadhay ayaynu waxa weeye maanta aynu aqoonsi helnay. maanta waa maalin qaaliya oo ku qaaliya qarannimada reer Somaliland. dhammaan ummadda reer Somaliland meel kasta joogaan hambalyo u dirayaa. waxaan leeyahay degmadu waa degmo ballaaran
mar labaad waxaan hawada u marinayaa salaan ma garanaysaa sharaf leh oo degmada Waraabeeye aan ka gudbinayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan halkan hambaliyo iyo salaan sharaf leh aan uga dirayaa aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee aynu u soo qaabilay buuxinay mahfalka aynu ku dabaaldegayno dhaganuglaanta ismaqalka isu imaatinka aad iyo aad baan bulshada reer Waraabeeye iyo kuwa deegaankeenna kale inooga yimiba iyo kuwa inagu soo guurayba dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa aad baa u mahadsantihiin maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waa 35 guuradii 18 May ee aynu ka soo wareegtay xornimadii aynu dib uga soo noqonay sida ay u soo ajiibteen 18 May waa ayaan tilmaaman waa ayaan aad iyo aad u mudan ilaahay waqtiga nabadqab lagu gaarsiiyo aad iyo aad waan idin hambalyeynaya dhammaantiin fahmi kaysa xirsi bulsha TV Burco